بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة الله وسلامه على حبيبه ومصطفى وعلى آله واتباعه ومن والاه. dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba oo caalamka ka joogtaan in muddo beejkan waan ku kala maqnayn, dagaal adag baa la galay, waa dareemi kartaan. alxamdulillah rabbil aalamiin. beejkii aan ku guuleysanay inaan si dhab ah aan ugu shaqo galno, aan runtii cadowgii beejkan gurmud qaran ee weyna ku soo duulay inaan gaashaankan u daruurno oo aan runtii aan meel saarno. ilaahay baa nala garab galay. soo dhawaada, waa gurmud qaran iyo mar kale soo dhawaada. sidaad la socotaan, horey baan idinku sheegay, saakan waan ka hadlay, haddana mar labaad baan rabaa inaan insha allahu tacaala aan ku celiyo qorshaha xasan sheekh maxamuud oo hubka beesha hiraab ugu qiibiyey ayaan rabaa insha allahu tacaala inaan ummadda Soomaaliyeed aan la wadaago. qorshaha runtii qorshe halis ah waaye, halis ku ah beelaha qaar ee Soomaaliyeed, beelaha loo dan leeyahay deegaanadooda in lagu duulo. ilaan meeshu waxaa ka baxay systemkii dowladnimo, waa baxay systemkii dowladnimo, meeshu wuu ka baxay. Soomaaliyey, qofkii og qofkaan ogeenba wax dowladnimo la yiraahdo maanta Soomaaliya ka jirto hab yaraatee ma laha. qandaraaskanna qandaraas dowlado shisheeye qorshe ay soo dejiyeen waaye in dhowr qabiil ka mid ah Soomaali oo deegaanadoodii laga helay ama deegaanadoodii Allah ku manaystay wax la yiraahdo mineral resourceska ama waxyaabaha adduunyadu ay isku haysato. waxa waaye resources baa la isku haystaa adduunkan. adduunyadu waxay la degi laadahay Congo, waxay la degi laadahay waxa waaye oo ay maanta ay ummadeeda ay u dhibaataysan tahay, fakhriga ay ugu nooshahay, qaxooti ay u tahay, adduunyada ay meel walba ay dadkeeda ay u daadsan yihiin. Congo waddan aad iyo aad u resources badan waaye, waa lala dagaalamay oo hadduu ilaahay ku idmahayo waxaa meesha iyadaa resourceskaas gurto dowlado caalamka ka mid ah. sababtoo ah waxyaabaha laga helay waa waxyaabo fara badan oo adduunka u baahan waaye runtii. hadday noqon lahayd dhanka diyaaradaha, matoorada diyaaradaha xaggoodii, hadday noqon lahayd nuclearka oo kale, yacni carradaas oo waddankaas laga keeno ama ciidda meesha laga soo qodo, waa dahabkii, waa diamondkii. ummaddii marka waxa waaye waxaa laga dhigay dad yacni muxuu ahaa reer Congo waa dad lagu halakeeyey dagaalo sokeeye. dowlad kastoo la dhiso way la dagaalaan, way baabi'iyaan. hadduu ilaahay ku idmaayo madaxweyne kastoo meesha ka soo baxo mid u adeego danaha cadowga fuliyo ayuu noqday. sidaas daraaddeed marka waad ogtihiin baan u malaynayaa Congo saasaa dhibaatadaasa ku dhacday. waddamo fara badan oo Afrikaan ah oo maanta dowladna leh, dowladna aanan lahayn. dowladaha la rabo waddamadaas Afrikaanka ah, dowladaha laga rabo ayaa waxaa ah niman lagu shaqaysan karo inay meesha iyada madaxweynaha looga dhigo. dad lagu shaqaysan karo, wixii loo diro fulin karo, danaha shisheeyaha fulin karo, dalkoodii baabi'in karo, dalkoodii iib geyn karo, sida xasan sheekh maxamuud oo kale. dadka noocaasa loo baahan yahay. adduunyadu qof dhab iyo qarannimo raadiyo lagama rabo. adduunyadu lagama rabo qof inuu sidii bini aadam ahaan inuu u noolaado oo dalkiisii difaaco, oo dadkiisii difaaco, oo dalkiisii u yiraahdo dalkaygii, dadkaygii iyo dalkaygii qof yiraahdo adduunyadan ma rabto. afrika lama rabo arrintaas ayada.
afrikaan intii mashaqadan dhaaftay yaro kooban way sida wadamada hadda maantayto oo la isdhihi karo way madax banaan yihiin oo ayaga ta faragelinta lagu hayo Ethiopia kamida geeska Afrika waxa kamida Kenya faragelin baa lagu hayaa laakiin shacabkeedii baa badbaadinay Kenyaanku shacab bay leeyihiin Ethiopiaanku shacab bay leeyihiin wadaniyadii baa jirto dal jaceelkii baa jiro حوايا شعبكي دالكيسي أما دالكودي إيه دفاع ذا ما كقول سيدو الدمدا هاد أفريكان ما أنت دولة بولاي سيدا نيجيريا وكلا أيضا دقال لقول الجرو أي قرانا مدى دي شعبكي دي أيضا با يعني وحلا متابتان باجرو مدح بناني دالك ولا متابتان عيدا دال ولا متابتان حدود دال ولا متابتان علم دل ولا متابتان دد ودن دولة ودن ددك موادنك ولا متابتان واي حقوقه حاجرو أو رنتي أساسي أبشرو مركا أنك تي ودنيدي وعنكو بدلني قبيالات تي يعني محوها أن ودنيدي قبيالات بلقو بدلي تي عيدنك وحلقو بدلي ميليشيات بيلات بلقو بدلني ميليشيات بيلاتكو أي ناقيم بدن عيدن كي قرنك وحنا ناقيم بدن ميليشيات بلديدو مي فهمت مركا أن قبائل الربيل عربتروه أو الصومالي باش عالم كان عطستي وركا ميلكو قر باش عالمكو أيا عطستي قبائل ذان إلا ترتروه لقبا بإيوه صومالي قده قندراسنا قبيلة جارهانات لو ديبي قبيلة داس إنay ku duulaan oo ay laayaan qabiiladaas in la laayo loogu talagalay caawa meel ku qoro qabaa'ilada in la laayo la rabo qabaa'ilo waxa loo leynayaa deegaanka ay degiin ay sheegtaan ayaa laga helay wax adduunyada danteedii ku jirta ayaa la helay intii marka qabiiladaas ay joogaan meeshaas ayada ah in dana gaar ahaanay laga fushido ma suurtoobi karto kow qabaa'ilada in la laayo la rabo waxa waaye waa digili miriflo waa number 1 waxay number 1 ku yihiin dhulka ay degan yihiin waa dhul istiraatiijiyad ah waa dhul wax soo saar leh waa dhul barwaaqa sooran ah waa dhul ku aasan wax kale iskaba daaya afgooye meesha la yiraahdo afgooye meesha la yiraahdo sida la socotaan afgooye meesha la yiraahdo waad ogtihiin meesha la yiraahdo afgooye ilaa iyo meesha la yiraahdo bulmireer dhaxdoodii ceelal gaas baa laga helay shidaal baa la helay shidaal ayaa la helay ceelashaas gaaskaas iyo wax ka badan dhulka buuraleyda ah nawaaxiga diinsoor wax walbo dhulkii waxaa la helay resourceski asaga ahaa daraadiisiba waxaa la yidhi digili mirifle ha la laayo digili mirifle in la laaya go'aan lagu gaaray waa kow digili mirifle dadka hadda hubka sababta dawladda hubkii ay lahayd ay beesha hiraab loo siiyey hawiye loo siiyey waxa waaye qandaraaska hawiye u qaatay digil iyo mirifle in laga cirib tara la rabaa qaaradda Soomaaliya Tjena. Ni vet att ni får inte stå här. Absolut, men där också ni slut där, finns inte. Jag vet inte vart era nya... Ska vi flyga? Vad ska vi göra sen? Jag vet inte vart era nya taxiplats är, tyvärr. Men här, när ni står här, så blir det farligt eftersom bussen också kör här. Nej, inga problem nu. Men... Ja, men det blir farligt eftersom bussen kommer också, så kanske ni ska iväg. Då blir det nästan en krock. Och där vi kan stanna inte, vi kan stanna här. Vad ska vi göra snälla? Jag vet inte, men jag vet inte. Vad har ni fått för information av era chefer? Ja, men den där tillfället bara till september kanske. September slut.
After September we must come hit. Ja, fast det är ju ingen taxiplats här. Ja, Det är ju men parkeringsförbudsområde. vad ska vi göra nu? Ska vi flytta? Ni måste ju flytta er härifrån i alla fall. Var ska vi stanna? Ska vi stanna där? Jag vet det tyvärr inte. Jag kan inte svara på det. Vi kan stanna Jag där. har sökt svar också från mina chefer. Okej? Vad ska vi ge er för information? Men här får ni inte stå. Tyvärr. Okej. Jag är jätteledsen. Jag hoppas på att jag har ännu mera svar imorgon. Okej, imorgon. Jag letar svar hela tiden. Okej. Så ni ska få rätt information. Tack. Okej. Hej då. halkaan ay noo diidan tahay naag baa na daba taagan oo ganaxna la daba taagan aan kaara ku dhacday ma biibayna way meelan aadna ma lahan meeshan istaagna waa nala taagan yihiin qoladii wax ganaaxaysay way ilaahay amarkiisii baa nagu dhacay ilaahay amarkiisii baa dhacay waxaan sameeyna ma naqaano meelan aadna ma naqaano meel walba waana loo diiday dhibaataan nagu habsatay haddaanahay dadkii magaaladan tagaasada ku lahaa waxaan sameeyna ma naqaano inaan warwareegno oo soo socdo weligii Allah ma aragtay nin la leeyahay meeshii taksiga loogu talagalay ka guur koow meeshii hadduu ilaahay ku idmahayo oo yani muxuu ahaa oo taksiga loo diyaariyeyna waqtigii aad meeshii istaagi lahayn waa dhamaatay lagu leeyahay maxaan sameynaa bal ii sheeg Soomaaliya imtixaankaasaan haysto marka Soomaaliyay qabaa'iladan digil iyo marifle deegaankoodii dartiisii baa loo laynayaa waxaa hadda meesha ka baxay systemkii dawladnimo waa u dhamaatay wallahi been idin ma sheegayo oo kelmad beena igama sugaysaan aniga systemkii dawladnimo waxa laga doortay systemka qabiilka laga doortay hubkii Soomaaliya keedka ahaa maanta qolada hiraab la yiraahdo beesha hiraab ayaa loo gacan geliyay wallahi oo billahi tallahi kelmadan ya baabuurtii oo jeemisyada ahaayo oo hubka waaweyn ku xirnaa dawladda walaalanahay Turkiga dhiibtay dhammaan bakhaaradii baa loo furay hubkii hawiye aruursanaya hawiye uu suubaynaya hubkan mar hore imtixaan adduunyo madaxweyne Farmaajo markuu dhacay waxaa la rabay hubka inuu gacan amaan ku celiyo Turkiga inuu isaga celiyo u dhiibo ama qaramada madoobay inuu isaga dhiibo la rabay ya qaramada madoobay madaxweynaha waxaa laga rabay inuu isaga dhiibo la rabay ma dhicin ya inuu qaramada madoobay hubkii inuu isaga dhiibo oo uu yiraahdo muxuu ahaa hubkii waa kan yani muxuu ahaa hubkii yani ummadda isku leyn lahayd oo la isku baabi'in lahaa oo la isku dhibaateen lahaa oo la isku dili lahaa uma dulqaadan karno hadduu ilaahay ku idmahayo hubkii waa kan inuu yiraahdo waa la rabay madaxweynihii oo wareejiyo haddii marka madaxweynihii hubkii wareejin waayo maanta in qabiil bakhaaradii loo furo beesha walaalaha hawiye oo la siiyo hubkii oo lagu gumaadi lahaa beelaha horta koow ma bidin dhamaystirne beelaha in la gumaado la rabo koow waa digli marifle labo waa mareexaan in la laayo beelaha la rabo waaya ya labo waa mareexaan waay mareexaan waxaa loo leynayaa dhul kelima ahane wadaninimada iyo madaxweynayaashii ska du ha taxi? Ja, kan jag få åka med dig? Vad ska du åka till? Till Bergfotsvägen 10. Bergfotsvägen här borta? Ja, men här uppe, Bergfotsvägen.